waayahay tallaabadii xalay uu qaaday Maraykanka ee uu isticmaalay diyaaradaha B2 bomberska ee uu ku duqeeyey goobo dhulka hoostiis buuro ah oo uu Maraykanka leeyahay nuclear lagu sameynayay. Een, horta arrinkaas waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo. Iran way ka digtay oo waxay tiri haddii arrinkaas ay dhacdo oo diyaaradahan Maraykanka uu isticmaalo oo Maraykanka dagaalka uu kusoo biiro sida xalay dhacdayba, jawaabaha ay ka bixin doonaan oo dhan way noo sheegeen. Iran waxay tiri jawaabta ugu horeyso waa in saldhigyada Maraykanka dalalka carabta ah ku yaaloo dhan bartilmaameed ay noo yihiin. Bahrain, Jordan, Imaaraat Carab, Djibouti, waxaa laga yaabaa xitaa Soomaaliya inay ku jirto, Sacuudiga, Kuwait, Ciraaq, Syria, dhulkaas oo dhan u daadsan yahay 40,000 oo ciidan ayaa Maraykanka aaggaas u jooga. Way dhacday marka duqayntii way dhacday. Aniga ilaa hadda in nuclear la burburiyey iyo in dhaawac zaa'id ah loo geystay wixii oo dhan aniga ma ogin. Maraykanka saaka waxaa hadlay wasiirka gaashaaniga Maraykanka ninka la yidhahdo Hegseth hadlay wuxuu yiri guule ahayd mishinka guulu ahay waxbaa burburinay oo nuclearkii Iran waa baabi inuu leeyahay obliterator ereygaas isticmaaleen. Sidoo kale Donald Trump xalay asagoo hadlaya asagana wuxuu yiri nuclearkii Iran obliterator waa la baabi'i. waayahay kolley caddeynta ma heno. Iran waxay leedahay maalmo ka hor aaba kala baxayba meeshii wixii muhiimka ah meesha ku jiro oo dhan qalabkii iyo structurekii bisa laga tegey. Iran ayadana saasay leedahay oo waxna la gaarsiiyey habeerate miji hawshan meesha kasii wadanayna. laakiin markay sheekada meesha marayso waa ogtihiin kolley jawaab inay xigto. Iran haddaysan ficil qaadin oo hadal keliya sheekada ay kusoo ekeyso kolley waa arkayna ayadana. laakiin waxay dhaheen marinkan Hormuz oo Maraykan iyo Shiina iyo dunidoo dhan ay maraan waa xireena. taas horta way ku handadeen. bal aan aragno hadda saacado fara badan laga joogaa duqeynta markay dhacday weli ma xirno Hormuz oo maraakiibtii militariga Maraykan iyo Yurub iyo Ruush iyo weli aaggaas way fadhiyaan. Tallaabada kale waxay ahayd ay sheegeen inay duqeyn iyo weerar u geysan doonaan saldhigyada iyo meelaha goobaha Maraykanka uu ka fadhiyo. ayadana kolley waa ka dhow sugeynaa. masaanay shib ku ahaan doontaa ma lagu qasbi doonaa Iran inay miis ka imaato mise sheekada hadda leeba bilow ay tahayba. taas waqtigaa sheegi doona. ruusha kuu saaray ruush waa tuu yiri iyo North Korea. North Korea iyo ruush waxay dhaheen nuclearka Iran meesha uu ku jiro isku tawa Maraykan oo annaga dagaalka waa soo gelaynaa. maantadan marka waxaa rabay madaxweynaha Iran inuu u safro ruushka wuu baaqday laakiin wuxuu dirayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa wuxuu kusii socdaa ruushku kusii socdaa. ayadana waa ka warsugaynaa wixii kasoo baxo. cunugii North Korea asagana maanta waa ka warsugaynaa waxa uu sheego asagana waa ka warsugaynaa. sheekada kolley hadday bilowday.